وليد بالمرة مو شاطر، تعرفوا ليش؟ عالصوم بالمرة مو شاطر، قولكم ليش؟ قولي ليش؟ دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى، ما بيرضى يضبها. ودنكين ودني تركينا ورابنا يديقو وانكو وردينا. ودنكين ودني تركينا ورابنا يديقو وانكو وردينا. بسم الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaa halkan ugu soo booqday oo kuna soo dhaweynay sekondariga Al-Irshaad oo aan ku soo dhaweynay barxadda dugsiga hoose dhexe Arayaan. ardayda aad wadeen aqoontii aad barteen soo bandhigaysa aad iyo aad baan runtii ugu faraxnay, waan ugu mahadnaqaynaa maamulka. annaguna ardaydu way ka faa'iideysanayaan barnaamijka loo soo bandhigayo, wixii la barayay oo baragtiisa loo sameeyo la tusay. marka aad iyo aad baan u fiican tahay arrintaasi. ardayda laftarkoodana dhiirigelin bay u tahay oo wixii ardayda lagu dhiirigelinayaaba aad bay u wanaagsan yihiin. marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, waana idinku soo dhaweynaa biidnillaahi tacaala. aqoontuna waxaan doonaynaa inay kor u sii kacdo intaan laga sii kordhiyo waliba biidnillaahi tacaala. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan u mahad celinaynaa ardaydan practicalka noogu sameeyay casharadii aanu dhiganay aanu afkuun ka maqli jirnay. waxaa jira falgallo aanu afkuun ka maqli jirnay. ardaydii waxay noogu sameeyeen practical oo indhahayaga ay wax nagu tuseen. marka labaadna sidii uu sheegay maamulaha dugsiga Irshaad, bahda waxbarashadu waa walaalo, waa qoys qura, waxaad tihiin walaalahayo. kusoo dhawaada dugsiga, kusoo dhawaada gacmo furan qalbi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka koobaad mahad iska leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iskugu keenay goobtan boqoran iskugu keenay Al-Irshaad Secondary School. waxaan mar labaad aan u mahad celinayaa maamulka, macallimiinta, ardayda iskuulka Al-Irshaad Secondary oo run ahaantii si aad u ballaaran nuugu soo dhaweeyay goobtan, noona muujiyay inaan nahay arday aad loo jecel yahay, la ixtiraamayo, maamuus iyo sharaf loo hayo. mar labaad waxaan u mahad celinayaa ardayda sida qiimaha la iyaguna iyo sharafta la iyaguna u qaabilay. marka hore waan cabsan noo xaslayn, ardaydan garanayn iyo macallimiinaydan garanayn baad meesha ugu imanaysaa, laakiin sidaan moodanay may noqon. aanu daadago hadalkayga, magacaygu waa Yaasiin, ka socotay iskuulka Horyaal Primary School, kuna hadlaysa afka galaaska. run ahaantii maanta waxaan aragnay waxyaabo aanu ka maqli jirnay buug iyo samurad iyo hal macallin iyo qalin lagu dhigi jiray oo intaanu qaadanno aanu dib yar muraajacaysan jirnay, laakiin maanta si toos ah aanu aragnay. aad baad u arkaysaan maamulaha iskuulku inuu aad noo soo dhaweeyay, loona ballan qaaday inuu noo samayn doono waxyaabaha aanu ardayda kale u sameeyay. taasna run ahaantii waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay qadarin iyo respect laynoo hayo. annaguna waxaan ballan ku qaadaynaa badanka ardaydeedu sida ay macallimiintu noo ajiibaan quruxda badan in annaguna u soo ajiibi doono. dareenkaygu maanta lama soo koobi karo xaqiiqatan, oo aad buu u ballaaran yahay barnaamijka. bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyntii allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhan iska leh. mar labaadka waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iyo ardayda iskugu timid halkan si ay u kala faa'iidaystaan aqoontooda. ta saddexaad aan sheegaya waxa weeyaan anigoo magacaygu yahay Cisaam Axmed Digaale, kana socday iskuulka Horyaal Primary School fasalada 8aad. halkan waxaan uga sheegayaa dhammaan ardayda inuu wada salaamayo. waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta haddaan dareenkayga eego ama aan cabiro ama aragtidaydaan eego siday aniga ila tahay, waxaan horta arkay waxyaabo aad u tiro badan, waxyaabahaasoo run ahaantii naga caawiyey inaan waxyaabo aan ku aragno si practical ah. adduunka saddex noocba wax u kala qismaa: ima uu shaygaas soo maro tajribo u soo maro, iyo ima uu soo maro at-tafakkur, inuu qofku fikiro, iyo inuu qofku cilmigan qiraa'o sameeyo. waxa ugu fiican waxa weeyaan weyn tajribo marta ama shayga inaad ku aragto practical aad ku aragtaa. run ahaantii practicalku
waa shay aad iyo aad muhiim ah waxaan uga mahad celinayaa macallimiintaas sidii noo soo dhaweeyeen al-irshaad dhammaantiin waxaan idinka maxay talo idinka mahad celinayaa sidaad noo soo dhaweyseen run ahaantii marka la eego muuqaal ahaan akhlaaqiyad ahaan iyo dhaqan ahaanba iskuulku waa iskuul fiican waxaan anugu maxay tolay aan ku aragnay weeyaan oo weliba si aamusan aan ugu eegnay wax lanoo sheegay maaha waa wax maxay tolay lala tiigsaday maskaxda iyo maxay tolay caqliga fiican waxaanu soo marnay waxyaabo aad u tiro badan hadday noqoto computer hadday noqoto dhinaca maxay tolay sayniska hadday noqoto dhinaca librariga dhammaantoodba waxaad ka faa'iidaysanaysaa waxa weeyaan waa sidii aad maxay tolay waxa si aad ugu arki lahayd si practical aad ugu arki lahayd sidaa daraadeed annagoo intaasoo dhan wada eegaynaa waxbarashadaa wada eegaynaa qiraa'adii eegaynaa tafakurkii eegaynaa jamaacigii eegaynaa siday dadku u fikiraan iyo akhlaaqiyaadkooda dhan wada eegaynaa waxaan ku tilmaami karnaa in iskuulkan yahay iskuul fiican kana qayb qaadan karaya horumarka dalka dhammaantiin waxaan ku salaamsanahay awalan allah bay mahadoo dhammood sugnaatay subxaana watacaala mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta iyo bahda al-irshaad secondary school run ahaantii aniga maanta waxaan rajaynayaa ka macallimiin ahaan in halkan aanu nimaadno nooga farxad badan inaanu jirin qolkan aynu ku jirno ama computer labka aniga 2011 markii iskuulka la aasaasay waxaan computer labku laababkii ugu horreeyay iskuulka laga hirgeliyo ee iskuulada dheeraa run ahaantii aniguna mar labaad maadaama bahda irshaad imika ka mid ah marka halkan la joogo ardayna aan inta halkan la joogo waan idinku soo dhaweynayaa idinkoo ardaydeediya aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحما هذا اسكاله الله سبحانه وتعالى ان ما أنت فرنت آد بنو فرح سنة ما دام نقصنا الإرشاد secondary school ان إرشاد school كإرشاد وحياة وبدن بنكلا كل ماي أو كم تانتي أنا أرضي ظهر أفكار كله فن school كإرشاد وحليه هاي system لا مدا system ككفر بنتجا وحليه هاي مدحوينه سلوك له وحليه هاي وساردو ان taasoo markasta la yiraahdo meel kasta bulsho iskugu timaado waxa ka suurtagal waxa loo yaqaan law and order oo ah sharciyo kala dambeyn al-irshaad secondary school waxa uu maanta ku taagan yahay qadarinta markasta qadariya ardayda sidoo kale waxa uu ku taagan yahay sharci ah inaanay ardaydu marnaba aanay yani kala takoornayn ardayda iyo macallimiintu aad baan ugu faraxsanay ardaydeeduna maanta ardaydii aan ku jiray horyaal ay maanta goobtan ku sugan tahay sidoo kale macallimiin boqoran oo sharfan أنا أذل كده جود كريم بسكول كوكسوغنا كي مديها معنا كي جيد جالسينس كمعني درس جواسة معلمين فربضان لا أذو قدرينه أيها قوتهم كوكسوغنا كمديها معنا أنا جاي هنشر معلم مولد أو سكول لكن وحن بلق قاعد دونا هرت أنا قلنا فهمت سيدا وبلق قاعد بين المنطقة إرشاد هدي إلى هاي صورة قليل إن شاء الله. قولوا عن عدوك واقو نولو الوناكسن ما إيو برواقو نبت لقو